challenge social media maalmihii ugu dambeeyay ka jiray dumarka Tigreega iyo dumarka Soomaaliyeed keebad gursan lahayd dumarka Soomaaliyeed baan gursan lahayd waxa ku jiray dacayuuni baa ku jirta raxmo roos dimad waan habli magaalada way ku jiraan fartin balbalaarka hablo waaweyn bay nugu jiray challenge maalmihii ugu dambeeyay social media ka jiray la isbarbar dhigay dumarka Soomaaliyeed dumarka Tigreega ee dalka Itoobiya keebad gursan lahayd adigu xagga Tigreega iyo khaam jiljileeca يا خامسة إلهي بين قرنا ينادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسكريت كارت أو برعاء كسوغان مركز كوبات شان كانت تدخل أسلوب تاي سبسكرايب تسار جنبالي لك كله فو سيشر جرى موقال كان يسيو وجارو داد تراب بدن سيدو كلا واحد نجلس عن كرتنا سيدو كلا واحد نجلس عن كرتنا بوجا عن فيسبوك كلنا هاي براها كلا تيك توك انستغرام كا سؤال كفتنا أدوينها مجال برعان وديني وحي أورنا يسا waxa jiray challenge maalmihii ugu dambeeyay social media ka jiray oo la isbarbar dhigay dumarka Soomaaliyeed iyo dumarka qoomiyadda Tigray ee dalka Itoobiya haddaba dadweynaha magaalada Burco gaar ahaan dhalinyarada waxaan weydiinay su'aashaas kaftanka balka ay taageersanaayeen amaba haday dhacdo inay noqoto inay guursadaan ka guursan lahaayeen Iskariya Cabdilaahi way iskariyo dumarka Tigrayga iyo dumarka Soomaalida ee la isbarbar dhigay maalmaha social media keebad guursan iyo baa la isbarbar dhigay iyo Soomaali maxay isu keenaya warba keebad gursan lahayd markaa ya teena waxaan gursanaya teemida afgaranayo Tigreega afgaranaya kaala iyo waxa lama afgaranayo aanu Tigreena kuma hadlo reer waxaan hay Burco laagta Burco baan doonayay ma dhacayso wallahi ana dhacay magacaygu la Lambard way Lambard su'aal dadweynaha magaalada Burco wadina ka qornaysa isbarbardhig social media ka jiray maalmihii ugu dambeeyay challenge dumarka Soomaalida iyo dumarka Tigreega la isbarbardhigay keebad adigu taageersaneed si keebad gursan lahayd baad ilaahay la Tigreega dilanduyada saawgalun yahay magaraas hal macno wade Soomaali oo isku indhabadan bada Soomaalida magaraas magarat kaanu de awoodan taayirada magaraas ya Tigreega doonaysa way sababa marka Tigreega u doonaysa maxay marka ma isba miya Soomaali oo isku indhabadan magaraas ka Soomaali Tigreega macna wali bada taaralka ka soo balansan magaraas kontitarka de magaraas magacaygu waxa weeye garaadilka casi way garaadilka casi ku soo dhaw chaalka secretary oo ku dhawe su'aal dadweynaha magaalada Burco wadiina waxa qoranaysa waxa jira isbarbardhig challenge social media maalmihii ugu dambeeyay ka jiray oo dumarka Tigreega iyo dumarka Soomaaliyeed la isbarbardhigay ka fikiraan aad u keebad gursan lahayd ama inna lillahi wa inna ilayhi Tigreega oo meel waalan way marka farsamo aad u dooratay ama gursan lahayd macaan de xagga dambana weerareen xaggana weerareen la alaaba Cabdilaahi Axmed Salaam alayhi way Cabdilaahi ku soo dhaw chaalka secretary waan ku soo dhaweey walaal su'aal dadweynaha magaalada Burco wadiina waxa qoranaysa waxa jira challenge social media maalmihii ugu dambeeyay ka jiray isbarbardhig dumarka Itoobiyaanka ee Tigreega iyo dumarka Soomaalida la isbarbardhigay keebad fikiraan aad u gursan lahayd taanu Tigreegaasan dirsin qaadan laaba mustarsin way sababaha u qaadanaysa ama u dooranayso waxa ka quruxdooda iyo way qanciyeen magacaygu Saki baa gigis way walaal Saki ku soo dhaw channelka secretary dumar isbarbardhig baa jiray social media oo dumarka Tigreega iyo dumarka Soomaaliyeed keebad gursan lahayd Tigreega gursan lahaa Tigreega gursan lahayd cadadka way sababaha aad gursanaysa bal la wadaag macnaha ridanayaan wixii bay faahsan yihiin macnaheedu bay ridanayaan kuweenu ma garanaysaa waa Soomaali anna Soomaali baana koodadii aw barimi fahmaysaa marka iyagu macnaheedu bay ridanayaan ma garanaysaa anna Soomaali baana iyaga wixii baa u duwan ma garanaysaa Soomaali ma rabo waxaan doonayaa inaan ma garanaysaa Tigreeya haday diinta aan haysanna ana u ridaya Sheekh Mustafa nu geynaya aw barre gigis baa leeyahay ma Faad Cadaani way Faad Cadaani ku soo dhaw chaalka secretary su'aal baan ku weydiinaa kaftana oo dadweynaha magaalada Burco weydiinay isbarbardhig social media oo dumarka Tigreega iyo dumarka Soomaalida keebad gursan lahayd wala hortaniyo waan arkay sawirada ma garay maalmaha oo dhan laakiin sanu meesha ma tigin ma garanaysaa
imaan waraystay wuxuu igu yidhi 5 kilomitir bay kaaga horayaan digrigan ma garanaysaa deetana anigu taasan ka boodinay marka hore waa qurux badnaay masuuradooda laakiin saniya waxa sanad ka sanadee baafka ma garanaysaa marka hada wallahi suurtagal noqon ma sideniya wala wax la yiraahdo maxamed Shaylaani way maxamed Shaylaani ku soo dhaw marka baad channelka secretary su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinayna challenge-gii ama isbarbardhigii maalmihii ugu dambeeyay social media ka socday dumarka Soomaalida dumarka Tigreega la isbarbardhigay keebaa taageersanad se keebaa gursan lahayd walaal aad baad mahadsantahay iskariyow waxa weeye anigu horta waxa weeyaan wax la isbarbardhigo ma Tigreena ma yahay dani Soomaaliya waana waxa weeyaan waxaan gursan lahaa kuwa Soomaalida sababta waxa la yiri hablaha Soomaalida gabayo badan oo loo tiriyay ayaa inaan anigu hayaa kuwa Tigreega miya iibaan loo tirimaa koori marka kuwa Soomaalida waxa weeye dhexda madaga dhaayaha indhaha dhalan wanaageeda luga inaan rakay dhinac martaa dheelimaad garabiye marka dee waa soo xisaabaad ay ku dhinac marto bal Tigreega waxa idinku maxaa haydan horta Tigreega marka aad baad maasantahay saasa oran laan magacay walaal Cabsaaq dumarka Tigreega iyo dumarka Soomaaliyeed isbarbardhigii social media socday maalmihii ugu dambeeyay keebaa taageersantahay keebaa dooran lahayd anu walaal dumarka Soomaalida ayaan gursan lahaa naagana garanayna walaal Tigreega aan tukano ilaahay aan aqoon saxay waxa ku doortaa qaladaas oo uraysa yaa saa marka waxa dooran lahaa hablaha iyaga aanu garanayna markay isku kacaan Soomaaliya ku xaliseen laakiin mid wiina odhaysa baaga galayde magacay waxa la yiraahdaa khadar shaaciyo kuma dheer way khadar shaaciyo challenge-gii maalmihii ugu dambeeyay social media ka socday la isbarbardhigay dumarka Tigreega iyo dumarka Soomaalida keebada adigu taageersan tahay se keebad gursan lahayd deenar dumarkeena wax loo dhiga jira anigu dumarkeena taageersan boqolkiiba waxaan leeyahay dumarkeena waxa la yihiin aan la garanay yaan la iska dhaadhicin laakiin hawleen dee ma garanaysaa kuwan baa nala dhashay xaqna ugu leeyahay laakiin adiga qof yaro maanta soo haajiraad iska sii hanqal taagtay ninka halka gaal waxaan u aqaanaa nin dee tan inay tis fahmi waana meel waayid ayuu baan marayna taa doonayo wal magacayga Farxaan Cabdi Ciise way Farxaan Cabdi Ciise ku soo dhaw channelka secretary waa ku dhaw sax su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinayno kaftani waxay ka oranaysaa challenge-gii maalmihii ugu dambeeyay social media ka jira la isbarbardhigay dumarka Soomaaliyeed iyo dumarka Tigreega keebada adigu taageersanad se gabadh keebad gursan lahayd Tigreega gursan lahayd way sababta waxa weeye baleeg ko ma garanin oo tiyaga silfaalantan dhaawa waa inaan saaxiibanahay way sabaha marka adigu gursanaysaa maxay dumarka Tigreega ama horta wax ku muuqdo ma horta asabaar wixii muuqdo waxa la yiraahdo way muuqdaan koodhi dee intaan waxa la yahay anigu jaalay soo maraysaa dee waxay doon wayga diyaar dee ciidan horta wajisa garan maaynaayar oo ada safiraamin ku wata adiga dee wixii damana waan iska soo hadlaynaa intaan anigu Tigreega Soomaalidu maxay hadinayaan Soomaalidu marka hore Soomaalidu waa ku dhahaysa lacag xaqay sugtaynaayar ma hayna lacag taasa ka xaasileynaayar war magacay Shaafici way Shaafici ku soo dhaw channelka secretary oo ku dhaw way su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxa ka oranaysaa challenge-gii social media ka jira maalmihii ugu dambeeyay ee dumarka Soomaaliyeed iyo dumarka Tigreega keebad gursan lahayd walaal anu waxa gursan lahaa dumarka Soomaaliyeed oo gursan lahaa Soomaaliyeed way sababaad gursanaysaa maxay yihiin marka sababta anu gursan waxa weeye niyow dumarkan laga shaqeynay Tigreega garas Itoobiya markan aad soo marna qarmiinkoodi baan la yaabnay iyo waan gursanana maxay noqonaysaa marka dumarkaas Soomaalida aan gursan lahayn ayaan la walaal way ayaan la ku soo dhaw channelka secretary walaan ku dhaw su'aal kaftana oo dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay isbarbardhigii dumarka Tigreega iyo dumarka Soomaalida ee social media ka socday keebada adigu gursanayda ama dooran Soomaalida iyo Tigreega ma anu waa Tigreega sababta adigu gursanaysaa sabab badan baan gursanayaa sababtoo ah reasonka koobaad oo ah anu horta nin waxa ahay nin beer weyn ku leeyahay xaga ay sibaqti teedna hablaana xagaas ku dheereeyay master iyo degree bay ka haystaan xaga beeraha digirtana way cunaano hablahan Soomaaliduna BC u baahan yihiin sandwich iyo waxa la garanay digirtoodaas ma miisaya saaxiibkay jaakuliba halkaana igu hayade Xamsa way Xamsa ku soo dhawo markaba channelka secretary waan dhawaday way su'aal walaal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay wax ka oranaysaa waxa jiray isbarbardhig dumarka Itoobiyaanka Tigreega ee social media ka socday dumarka Soomaaliyeed keebad gursan lahayd adigu waxa weeye marka ugu horeysa Soomaali baynu nahay Soomaalidu baynu gursan lahayn way Soomaalida diinta haysatay waxa weeye wixii diinta haysta
islaamka uunbaa la doonayaa marka ugu horraysaba dee waxaynu joognaa somalilan innagoo somalilan joogna haddana inaynu soomaalida dee ka cararno maaha marka hablaheennaa soomaalida ayaynoo codaynna iyagaan u codayn laanu waxa weeye waddan waliba hablihiisu dadkiisu qani ku yaaniyow waxa weeye markaa annagu hablahayaga hablaanu dhaafsiisan karaynaaba ma jiraan hadday doonaan ma hindi ahaadaan macdallaa waxaad ka sheegaysaa etoobiyaan iyo tigrey magacaygu waa welida xasan way welido ku soo dhow channelka Secretary su'aal baan doonaa inaan ku weydiino kaftana dadweynaha magaalada Burcaan wajinay challenge-ga social media maalmihi ugu dambeeyay ka jira la isbarbar dhigay dumarka Tigreyga iyo dumarka Soomaalida keebada guursan lahayd anigu marka saaweed waxaan guursan lahaa baash waxay ahaayeen Soomaalida sababta guursan samaxay Soomaalidu doo hableena dhulka yaacaya koodad meesha soo marayna leh koodad meel baan ka soo wada dhac koodad laakiin de Tigreyga iyo waxa wax lagu sheegay ma aragay halkay ka soo dhacay kuwaas war ma hayno deeno Soomaalidaas tunjaama baan qoriyo dhacaysa kuwaas la gaarina dabka waa magacay maxamed balilah way maxamed ku soo dhow channelka Secretary wandhow walaad bad maasintay way wala su'aal kaftana oo dadweynaha magaalada Burcaan wajinay isbarbar dhigii maalmihi ugu dambeeyay social media ka socday challenge-ga dumarka Soomaaliyeed iyo dumarka Tigreyga la isbarbar dhigay keebad adigu dooran lahayd bismillaah su'aasha danka jawaabo isbarbar dhiga dumarka Tigreyga iyo Soomaalida waxa waxaan lahaa hableena Soomaalida meelka tagno ma dumarka Tigreygana san warbixinaan ka hayo waxa lagu dumarkaas ma maydhaano ma yaqaanaan bas loo maydhaba marka nadaafada marka qaybta marka gabadha guursanaysidna waa qayb kamid ah nadaafadeeda iyo gabadha gaarida dumarkeena waa gaari hableena Soomaalida gabayo badan baa lagu amaalin marka hableena inaan sharafta karidin baan leeyahay walaal waa Axmed Dhaal way Axmed Dhacda ku soo dhow channelka Secretary aad iyo aad baan ugu dhow walaal Secretary way su'aal dadweynaha magaalada Burcaan wajinay wax koornaysa challenge-ga maalmihi ugu dambeeyay social media ka jiray la isbarbar dhigay dumarka Soomaaliyeed iyo dumarka Tigreyga ee dalka Itoobiya keebad guursan lahayd adigu niyo in adeer markay noqoto xagga dumarka wixii saftiin macaan qaadan karayso garanaysa dareenkaaga iyo qaamtaada kicinaysa ayaad inaad jiidanaysa marka anigu xagga markaan ka hadlayo iyo xagga dadka markaan eegay in rag qiimihiisa xagga Tigreyga iyo qaam jilcilaaca يا خامسة إلهي بين قرنا نايناد. وي تكلم مركز سبعة ودورنا سمحك. سبب تام دورنا حوي. شنيدي يا خامتي شلة يصفي بدك على كوسر تاني يا حمد إنه بحين ما قرنايز. يوي ولا قرنايز. ولا اللي هنا يحمان وحن واقفتن. وحن ليلة كيس حباية نقاش العيا وحين هذا. يا وأنت أصلاً تكسر قبل. واروا إدريس ندرن دي قرقار شعب الدود ما دريسته. هذا. وي إدريس كسر دو شارك سكرتير. وردو هاي سدو سمورة سيد صاحب. هذا. وي سؤال كفتنا دون هنا كويدينو ودوينها مقالة برعاء ويدينني. واحد شرا تشالنج سوشيال ميديا كسعودي معلومي يقول تبي. واحد شرا اسمه برنيك دمر كيس Soomaaliyeed iyo dumarka Tigreyga. bal kaydris ahaan adigu fikirkaaga maxaad keebad gursan lahayd horta waxa gursan lahaa kuwa bilaashka iska soo qaxay macbuuran baan u sikreeyay waariye raashikoodi xataa waa dhigdhig waxa isleeyahay waa sideed ku xareysay ugu yartahay walaal magacaygu waa maxamed ilkaas way maxamed ilkaas ku soo dhow channelka Secretary su'aal dadweynaha magaalada Burcaan wajina kaftani waxa ka oranaysaa isbarbardhigi social media ka socday ee dumarka Soomaaliyeed iyo dumarka Tigreyga keebad u gursan lahayd anigu niyo Soomaalida wax dhaama ma jiraan barolaanay way sababaad marka Soomaalida u dooratay niyo Soomaalida hablaha Soomaalida waa xanjo wana waa bisku wax walba noqonayaan niyo ya marka waxaan lahaa niyo deyntaan inoo ginde niyo daayarta marla Saciid baa la yiraahdaa way Saciid walaal ku soo dhow channelka Secretary waan ku dhaweey walaal su'aal dadweynaha magaalada Burcaan wajina waxa ka oranaysaa dumarka Soomaaliyeed challenge-gii social media ka socday maalmihii ugu dambeeyay ee dumarka Soomaaliyeed iyo dumarka Tigreyga keebad taageersantahay si keebad gursan lahayd horta dumarkeena Soomaaliyeed wax loo dhigaa ma jiraan kawdhe raggan u sii diyaar garoobayeen waxaan u sheegayaa waa rag la xoox ku quracanayeen subaxii dumarkanna waxay cunaan waxayna aqoon kuweena la xoox cunayo wax ka dhaamayno ma jiraan kulay walaal magacayga Nuur Bare walaal Nuur Bare su'aal dadweynaha magaalada Burcaan kaftana dadweynaha magaalada Burcaan wajinay isbarbardhigi social media ka jira dumarka
Soomaaliyeed dumarka Tigreega keeba taageersan se keeba gursan lahayd niyo aniga dareen ahaantayga iyo choice-kayga miya niyo anigu hablaha Tigreegaasaan gursan lahaa niyo sababahan u gursan lahaa waa iyagii de wixii micnihii baa u duwan ma garanaysa oo de wixii higher life-kiina noloshii de fahantaan macquula ma garanaysa marka de iyagu Soomaalidu de macaladaanay diinta haysan ma aragti macalana diinta bari lahaa micnaha nu ridi lahaa anaaba de wax kastaba de teacher uga ahaan lahaa de Cabdirasaaq waan aniga Cabdirasaaq dumarka Soomaaliyeed iyo dumarka Tigreega challenge-gi Facebook YouTube social media ka socday maalmihi ugu dambeeyay keeba taageersanad se keeba gursan lahayd Soomaalidan maxaad sabab Tigreega aga balaas waa kaga yaaladeen aga balaas waa kaga yaaladeen walaal aga waxa kaga yaaladeen aga laabsan waxa kaga yaaladeen arkii Cabdullaahi Qaasim way sax way Cabdullaahi Qaasim oo su'aal dadweynaha magaalada Burco diinno kaftan waxa kornaysa isbarbardhigi social media ka jiray ee dumarka Soomaaliyeed dumarka Tigreega keeba dooran lahayd ama keeba wad gursan lahayd de Soomaalida sabab gursan samaxin de waxaan u doortay de isku dhaqan baan nahay isku dad baan nahay isku diin baan nahay waan wada dhalanay de Tigreega ma aqaano hadda labadinkeeda leeyahay iminku ma ku maqlayo bariga Itoobiya haysteen koowde mid kale social media marka imika Tigreega la soo dhigaya hablaha waa wixii ay migista xayla marayna ay kaga qabsadeen dalka bariga ay jabaad ahaayeen ay dumarkooda la tumanayeen hadda labadinkeeda leeyahay ciidamadii migista xayla marayeen waxay ku hoodeen weey Soomaalidana iska hubismaan leh halka way adad maasto walaal ku soo dhaw channelka secretary waa iskriyo dhawe su'aal dadweynaha magaalada Burco weydiinayay waxay ka oranaysaa waxa jira challenge isbarbardhig social media maalmihii ugu dambeeyay dumarka Soomaaliyeed iyo dumarka Tigreega marka fikrahanadu keeba gursan lahayd walaal anigu waxaan guraysan lahaa fikirkayga markaan cabiro hablaha Soomaaliyeed way sababta marka maxay tahay sababta walaal anigu guraysan lahaa horta hableena waa hablaha aad u sharaf badan diinteeda islaamkuna aad in badan bay ka warantay hablaha Tigreegu hablaha aynu isku dhaqan iyo isku diintoona nahay maaha marka horta sababta koowaad aanu gursan lahaa hablaha Soomaalida waa taa waa magacayga bilaaw la dhaaf way su'aal dadweynaha magaalada Burco wadina waxa ka oranaysaa challenge social media maalmihii ugu dambeeyay ka jiray dumarka Tigreega iyo dumarka Soomaaliyeed keebad gursan lahayd walaal horta waxaan gursan lahaa dumarka Soomaaliyeed keebad gursan lahayd dumarka Soomaaliyeed baan gursan lahaa way sababta gursan saamaxay sababta gursan waxa ku jiray dacayuni baa ku jirta raxmo roos dimad waa habli magaalada way ku jiraan tan miyaan garaynaa balnaaga waaweynaan wiliga arag baa ku jiro loona way isku xaaran xarkiis kama meena wala macquul noqon maysa dawlaan marka Tigreega waxa leenahay dawlaan khayrkiin doonta isma leekine socdaan leen waayo de fartin balbalaarka hablo waaweyn bay nagu jirade baa waalantay hadaynu eegnana de wala yaabaya ajida kuwan maxaynu ka garaynaa balwadaas mid magaceeda la garanayaa biyaytirno waliinde de marka hableena ay ku adkaysan barkhad wala way barkhad ku soo dhaw channelka secretary waan ku dhaweey wala su'aal dadweynaha magaalada Burco weydiinay waxa ka oranaysaa waxa jira challenge social media maalmihii ugu dambeeyay ka jiray waxa la isbarbar dhigay dumarka Itoobiyaanka Tigreega iyo dumarka Soomaalida fikrahan keebad gursan lahayd ee Soomaalida gursan way sabab gursanaysaa wax maxay sabab waa Soomaalideeni xaga ka doona xaga waxaan ka doonaa waa khalad Tigreega waxaan la sheegayay waa khalad Soomaalideena san iskala mushaaxaynayo la xaawinayna soo socnaysaa